Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Kusoo dhawaada kanaalka waa kuma qiso la yaab leh ku dayashaya cabir qaadashana mudan. Waalidka ayuu baari u noqday, isagana awlaadiisa ayaa baari u noqotay. Balse intaa ka hor bilis subscribe dha haddaad nagu cusub tahay channelka, like dha haddaad ka heshay fiidiyowga, commentiga fikirkaaga noogu reeb. Mahadsanid walaal. Hooyo ayaa waxay dhashay wiil, waxaanay fakaysatay isaga oo keliya. Aad ayaanay u jeclayd. Wiilka aabihii ayaa geeriyooday isagoo jira 12 sano. Hooyadii waxay dhexda u xidhatay sidii ay wiilkeeda meel fiican u gaadhsiin lahayd. Wiilka ayaa wuxuu go'aansaday inuu shaqaysto maadaama aabihii geeriyooday, cid dhaqaalaynaysa aysan jirin. Hase yeeshee wiilka hooyadii way ka diiday fikirka wiilkeeda, waxayna ku qasabtay inuu dhammaysto waxbarashada si uu mustaqbalka u gaadho meel wanaagsan, aqoontiisana uu ku meel maro. Hooyadii muddo kadib way xanuunsatay xanuun daran, waxaana u timid geeridii oo way dhimatay. Wiilkii aad ayuu u murugooday, waxaanu noqday waalid la'aan. Kama uusan quusan nolosha, wuxuu bilaabay inuu dhammaystirto waxbarashadii, gaadhana guushii ay hooyadii la jeclayd. Wuxuu nidar ku galay marka uu shaqaysto ee uu lacag helo inuu masaakiinta garab istaagi doono, tabarucaadna uu sameyn doono, meelaha khayrka ahna wax badan ku bixin doono sida masaajida iyo meelaha khayrka ah. Ajarka iyo fadliga iyo xasanaadkana waalidkiisa u niyeysan doono. Wiilkii waa u weynaaday ugu dambayn, wuxuuna yeeshay reer, waxaanu alla siiyey wiil. Wuxuu bilaabay inuu masaakiinta caawiyo, masaajidana dhiso. Maalin ayaa wuxuu tegay masjidka jaarkiisa ah, wuxuuna arkay dhalinyaro masjidka u soo wada mishiinka biyaha lagu qaboojiyo. Aad ayuu u murugooday, wuxuuna yidhi waxaad ilowday masjidkii jaarkaaga ahaa. Wuxuu iskaga soo tegay, balse waxaa markiiba ka daba yimid imaamkii masjidka. Markaas ayuu wuxuu ku yidhi imaamkii masjidku, camalka aad samaysay ajar Allah ha kaa siiyo, waalidkaagana Allah ha u naxariisto. Wuu yaabay, wuxuuna yidhi laakiin anigu alaabtan maan keenin. Imaamkii ayaa ku yidhi wiilkaaga yar ee Maxamed ayaa keenay. Wuxuuna yidhi aabba ayaa ii soo dhiibay. Aabbihii aad ayuu u yaabay, isaga oo meesha taagan ayaa waxaa imid wiilkiisii yaraa ee Maxamed. wuxuuna ku yidhi aabbihii, aniga ayaa keenay aabbo, waxaanan jeclaystay beddelkaaga in aan anigu ka qayb qaato khayrka. Aabbihii wuxuu wiilkiisi ku yidhi wiilkaygiioo mabaad shaqaysanine halkeed ka keentay lacagta oo yaa ku siiyey? Wiilkii wuxuu ugu jawaabay aabbihii, waxaan urursan jiray lacagta aad ii siiso iskoolka iyo lacagaha mararka qaar aad ii siiso. Waxaan ururinayay wakhti dheer, waxaan rabay inaad ii ducayso si aan u noqdo wiil baari ah sidaad adiguba ugu ahayd waalidkaaga baari. Aabbihii aad ayuu u farxay, wuuna u duceeyey wiilkiisii Maxamed. Waa qiso dhab ahaan mudan in aynu ku cibro qaadanno. Ninkan waxa uu helay midhihii marka uu yaraa uu beertay. Waalidkiisa ayuu baari u ahaa, isna ubadkiisa ayuu alla baari uga dhigay. waxaa la idhaahdaa samafalka waalidku waa deyn kaa maqan. waxa laga maarmaan ah maalin uun inay kuu soo noqoto, sida caasinimaduba maalin uun aad ula kulmayso haddii aanad iska ilaalin. qisadeeni halkaas ayay ku joogaysaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.